sida nolosha caadiga ah waxaan ka dhashay qoys ka kooban hooyo iyo aabe markaan dhashay waxa la igu soo dhaweeyay farxad iyo reyn waxaana la bixiyay magac ka ugu fiican oo Maxamed waxaan ku dhashay deegaan miyi ah oo hoos yimaada magaalada Ceelgaabo buurta caanka ee Surudeen iskuulada ku dhigano dhamaanteen ayaan ku dhashay reerkaygu waxay ahayn reer guura dhaqda ariga lo'da iyo xoolaha kala duwan ee qofka Soomaaliga uu caanka ku yahay dabayaqadii qarnigii tagay 1995 baan halka ku dhashay waxaan reer magaal noqday oo magaalada soo galay sanadkii 2000 aniga oo markaa da'daydu ay aad u yartahay baa adeerkay lay keenay si aan nolosha magaalada oo igu weyn tahay inaan wax barto aan halka uga bilaabo runtii adeerkay waxaan la noolaa muddo 8 sano ah oo ka bilaabmaysa 2000 ilaa 2008 magaalada Hargeysa ee caasimadda waa Somaliland waxaan u soo wareegay 2008 ujeedada ugu weyn waxay ahayd noloshii magaalada iyo noloshii waxbarashada inaan sii hormariyo runtii aniga iyo walaalkay oo iga yar oo maanta ila socon ayaa Hargeysa nimid markiiba waxaan la ku daray anagoon magaalada wax badan joogin iskuul hooy ah oo boarding ah oo ku yaala bariga magaalada Hargeysa muddo 9 bilood markaan dhiganayay ayaan habeenada kamida markii salaadii subax la tukaday ayaan xanuustay xanuunkan dareemayna wuxuu ahaa xumad aad u daran oo jirkayga oo dhan aan ka dareemayo kadib waxa dhacday inaan macallimiintii u sheego inay fasaxaan si aan Hargeysa u tago oo aan dhakhtar u raadsado caadiyan macallimiinta Soomaalida qofka markuu xanuun sheegto ardayga ahi hore uma aaminaan waxa lay qaatay ama lay mooday inaan waxbarashada ka maraataynayo ama aan si uun waxbarashada u diidanahay waxa la igu yiri maadaama xanuunsanayso bukaan chiefskaga ah sariirtaada kadib markii ay arkeen in xaaladaydu ay dhab tahay oo aan ka soo reynayn 3 cashan aan meeshii ku sii xanuunsanayay ay subaxyada kamida waxa ay sheegeen inaan dhakhtar raadsado oo aan Hargeysa qabto sidii baan ku imid gurigii aan u sheegay inaan xanuunsanayo markiiba adeerkay Allah u naxariistay wuxuu ahaa gudoomiyaha banka Somaliland iyo Soomaaliyaba Abdulrahman Ducaale imika uu iga hooseeyo uu dhintay adeerkay baa markiiba dhakhtar geeyay markii dhakhtarkii la geeyay ninkii dhakhtarka ahaa wuxuu yiri xasaasiyad iyo waxba haya marka kiniin baan u qorayaa kiniinku ii qoray wuxuu ahaa kiniin midku uu faraha la leeyahay oo kii geela lagu ridi jiro kala kinacaalkii ayuu ii qoray adu kiniinku ku sii xanuunsaday muddo asbuucana gurigii bukaan chief baan ku sii ahaa sidii aan isaga xanuunsanayay ayaa habeenada kamida saqdi dhexe ayaan waxaan damcay inaan musqulsha u baahdo albaabka halka gacanta laga furo baan iska furwan awoodi waay markaan arkay inaan albaabkii ka bixi karin ayaan waxaan damcay inaan sariirteedii iskaga noqdo halkii aan tago haddana waxaan awoodi waayay inaan sariirtii lafteedii aan ka soo degay daqiiqada ka hor aan kori kari waayo dabadeetana waxaan arkay furaash dhulka yaala kii baan iskaga seexday habeenkii waxaan seexday hurdo aad u macaan oo aanan seexan tan iyo intii aan boodhika ka soo sokeeyay aan xanuunsanayay tabta aan u fadhiyo ayaan luga u laabtay waan seexday subaxii baa inaan adeertay ikicisay waxay ku tii kaalay aadayo oo quraaco dabadeetana kacbaan siri gacantaydi maaha luquntaydii maaha lugtaydii maaha waliba way xanuunayaan aad bay xanuunayaan markaasaan af labadii qayliyay maxaa igu dhacay marka inantii baa inan guriga ka shaqeyn jirta u yeedhay ujeedada ugu yeedhana waxay ahayd inay kiciso oo bal inay isku dayaan marka way awoodi waayeen inay ku guuleystaan inay kiciyaan halkiiba la igu yeedhay adeero markaa sii shaqo tagayay dabeetana waxa la saaray gaari isla ninkii baa la igu celiyay maalintii hore kiniinka waaweyn soo qoray luqunta soo qaad bay igu yiri markaan luquntii soo qaaday aan ku awood uma leeyahay luquntayda soo qaaday ayuu igu waxa haya mina charges ama qoor gooyo waxay Soomaalidu u taqaano waarkayga ii geeyay buu yiri muddo 3 bilood ah ayaan waarkiisii aalay markaan cisbitaalka galayay laysiday ayaan naadeertay weydiiyay waxaan ku yiri cisbitaalka imisan ku jiraya waxay igu tiri muddo 5 cisho ah marka runtii 5 cisho ma noqon niyadun bay dhisaysay muddo 3 bilood ah
ayaan halkii ku jiray jirkayga oo dhan baa isbedelay muuqaalkii jirkayga lugihii waaweynaaba dhuubtay dhabarkii wuu qalloocsamay gacmahayga way dhuubteen wax walba waxay ku xidhmeen qof kale haddaan koobiya u baahanahay qof baan ka sugayaa haddii kaneeci qaniinto qof baan ku odhanaya iga kici waliba ii xog meeshii xanuunaysa wax walba waxaan noqday qof kale ku tiirsan waxyaabaha aad ii caawiya waxaa ka mid ahaa ilaahay wuxuu igu deeqay iimaan buuxa aad baa iimaankaygu u fiicnaa mararka qaar hadallada dembi ah baan ku hadli jiray anoo ilaahay la hadlaya odhanaya maxaa sameeyey maxaa sidan igu dhacday haddana ilaahay fadligii noloshii waan la qabsaday waxa dhacday inaan maalinkii lay keeno daktarka caanka ay wada garanaysa gaboose markuu eegay wuxuu yidhi qofka noocani 3 marxaladood buu maraa waa ta koowaade qofka sidiisan oo kale 24 saacadood ma noolaado uu dhintaa qofina waxa weeye qof maskaxda intuu xanuunkii kaga dhaco dhareerka daadiya oo qofkaas dee nolosha aakhirana ma joogo ifkana ma joogo waa qofkaa iska tabcaanka qofka saddexaadna waa boqolkiiba halo waa sidiisano laakiin dawooyintiisa ugu fiican waxa weeye inuu jimicsado oo exercise la geeyo halkiiba nolol kale waxay iga bilaabantay aan markaa u arkayay anigu maxamed ahaan nolol cadaaba maadaama jirkaygii uu seedihii xidhmeen muruqyadii meeshii ka baxeen jimicsi baa lay bilaabay physiotherapy subax kasta waa laygaga soo cabaadin jiray waxaan ugu nibcaa qofka igeeyo jimicsiga markaan arkay inaan noloshii socodka ahayd ee muddada 12 sano aan ku jiray inay waxyaabo badan oo hamigayga ahi si yaroo fudud daqiiqado kooban maalmo kooban ay been ku noqdeen hami baan lahaa hamigayga ugu weyn wuxuu ahaa marka ugu yartahay inaan naftayda anfaco marka ku soo xigtana waalidkay oo hooyaday marka ka noolayd inaan anfaco hadana waxaan arkay sideed waalidka ku anfici kartaa sideed naftaada ku anfici kartaa maadaama marxaladan iyo xaaladan ugubka ee kula soo gudboonaatay ana doonayna inaad jeclayn أنا ما نشعلين الحاد بيلو ما لكن قفك إلهي بقدره إنه الحاد بيلو نسدح أفرتنات قفك مركو أودك هو يدي وكتشرو أيا الله قري وحكستو أو نلاشن أو كل عيو أو مريو أو تنهال كما كي أرمو مريان سؤال بني سويدي وحن محمدو وحول بعض أركتها حقيقة دي ما بينين كرتيد سيدي بعد نلاش حكيت كسو جيل كرتان نلاش دكتور كمان كان كتشري وهلك أجوين أنا لها وحوها ريكورير oo Panasonic dadka record-ka dhageysta dadka idaacadaha dhageysta baa garanaya idaacad baa dhageysan jiray wiilal iyo hablo maalin walba radio Hargeysa iyo VOA-da markaa cusbay 2009 baa ahayd iyo BBC-da marka waxaan ku hamiyay wiilashan rag iyo dumar bale maalin walba imaaweliya sidoo kale inaan noqdo hadana su'aasha isweydiinta waxay seedo noqon kartaa way xaaladaad ku sugan tahay maaha mid ku saamaxaysa markii dhakhtarka laga soo saaray ayaa walaashay waxay ii keeni jirtay canjirado ay ku duuban yihiin heeso hore heesaha maalin walba ma dhageysan kartid tan heesi markaan dhageystay waxaan ka fikiray codkayga inaan ku duubo marka waa adag tahay saan idin sharaxa laakiin waxaan isku dayayaa inaan idin sharaxo qaabkan wuxuu sameyn jiray canjiladu laba dhinac bay ka kooban tahay canjiladii hore ee heesaha ama quraanka ama maxaadarada in ka dhageysan jireen marka canjiladaas codkayga record-ku wuxuu leeyahay 6 badhan laba markaad wax masaxayso ayaa la taabtaa midna markaad ka daarayso midna markaad ka baqtiinayso mid gadaal iyo hore loo dhaafiyo canjilada tan canjiladii baa codkayga ku duubay codkaygu markii hore wuu xumaa marka wadiyaan iska dhigayaa marka idaacad baan doonay inaan samaysto idaacadan aan doonay samaysanaya maaha idaacad meel gaadha oo short wave ah waa ama FM laakiin waa idaacad qofkii marka uu yimaada aanu daari karo canjilada marka canjiladii hal dhib halka ka timid laba dhinac bay leedahay qofkii sidii uu dhageysanayo ay dhinaci kale iska dhamaanayaan arrinka maxaad ku xalisaabaan waxaan ku dadka la beenuma sheegay waxaan khiyaarta aan jecelahay awada naga dhageysanay say idaacadaydu waa canjilad ee xagga kale u rogsaad wararka iyo warbixinada la soo inta haddaan kaga soo gudbo ana waxaygii iska duubta canjiladahaygii iyo hawlahaygii iska wata ayaa maalmaha ka mid ah nin walaalonahay oo kala bahanahay oo wadaada oo niman wadaada la socda ayaa ii yimid marka anigu qof kasta waan dhageysan jiray ama sheekha ahaado oo heesta hadiido ama waran laha ahaado ama dadka ujeedadeedu waxay codkayga in la maqlo marka dadku codkayga maqlaan qaybay kala noqon jireen
qaar rumaysta oo dhaha wallahi wad fiican tahay qaar badan oo idaacadaha ka shaqeeya dhaanta iyo qaar igu dhaha mar intay beentaadii socotay maxamed ayaad wariyaasha BBC da tiri waa aniga laakiin markay magacayga ka dhex maqlaan ay rumaysan jireen halka markaan marayo ayaa maalmaha kamid ah waxay la soo hadlay nimankii wadaadada ahaa anjalada siiyay waxay ku dhaheen qola ku imanaysa qolada soo dhawee galabtay ku imanayaan marka waxay ahayd 2015 anu markiiba waxa igu weyn waxay ahayd qola shaqo ku siinayso CV-ga kaliyan haystay aan tusi kareen anjaladii iyo wixii buu ahaayo waan si diyaar garoobay halkiiba igu yimaadeen soo nimanku interview bay ka rabaan way waraysteeno maalin bay igu dhaheen habeen dambe soo galaya hooyada ilaahay xafido cirgaabo joogtaan garaacay ilaa cirgaabo waxaan garanayo waxba isku maniin baan ku dad caaway daawan weydaan waa wada garaacay dadkii halkii markaan ugu tagay aan la daawaday ayaa habeenkii warkii YouTube-ka la soo galiyay barnaamijka waayaha nolosha buuha waan soo goostay Facebook aan soo dhigay waan iska seexday Facebook bariga langaab baan ka ahaa shacab maanaysan waan seexday subaxii baan arkay baalkiiyo wada message wada waxaan yimid mid qofka leeyahay baad ka sheegay mise baalka wala gaar joogsaday adigu halkii waxaan hadal idinku daaline waxay la soo hadlay nin Axmed Maxamed Cilmi la dhaho asal ahaan reer Kismaayooda wuxuu igu yiri waxaan doonayaa in maadaama waxbarasho aad saxaafadda jeceshahay inaan ka bixiyo waxbarashada saxaafadda oo iskuul gasho Soomaaliland laba iskuul ba markaa jiray ugu fiicnaa Hargeysa gaar ahaan iskuulkii koowaad caqabad meel walba haysato iminka dhaweed arkayseen ayaa naga hor istaagtay jaran jartii ayaan kori karweynay iyadana sidii baan kaga haray kii labaadna aan arka ka duwan ayaan kala kulanay dadkeenu markay maqlaan qof baa wax bixinaya iyo hay'ad iyo urur iyo markaba xisaabo khaldan baa la isku dhufsadaa ninkii macalinka iskuulka lahaaba wuxuu sii maanta hay'adii Afrika soo gashay wuxuu igu yiri 10 laabkeed baa ka qaadaya waxaan ku ujeedadaada iga qaadaysaa ma cadda waa maxay wuxuu igu yiri si gaar ah baan wax ku baraya waxaan ku maxaad si gaar ah bartaa iskuulkuna jiran jar maaha ardaydaas ka dhex fadhiisanaya gaarkayga badaa may adigu ninku xisaab buu isu geystay ilaahay khayr siiye in badan baan waxaan isku daynay in macallinkii la iskaaga fahansiiyo oo de waana iskuulka kaliya ee haray waan maslaxaynayo adigu nadiid iskaga tagnay waxaan iyo jameelada cadiireed baniyada ayaa iskaga dhistaa oo iska daartaa qof kasta inteena halka fadhida qof kasta uu aaminsan yahay in maalmaha kamida uu dhiman doono anuna waxaan aaminsan maalmaha kamida inaan wariye noqon doono taa marka laga tago noloshii waxyaabo badan aan doonayay way hilgaleen waxa ugu weyn ahayd hamigeyguna intii ugu badnayd oo ahayd inaan wariye noqdo way hilgashay meeshan jeclaayeen doonayay inaan ka shaqeeyana oo aan ka shaqo galay waxyaabaha ugu badan aan u malaynayay inaan ku guuleystay guusha iyo guuldarrada labadaba ilaahay baa haya waxa ugu weyn aan wixii baan jeclaaday waxa aan doonayay ayaan kalkacayl badan u qaaday waan raadiyay joogtayn baan sameeyay dadkaygiina caawimaad baan weydiistay oo qof walon bidayay inuu wixii tar doono halkiisaan ugu tagay ilaahayna waan tala saartay inta baan oran karaa inaan halka isugu nimaadno ayaa waxa ugu weynahay maanta waxaan sida farax sheegtay sanadkii ugu dambeeyay baan ku jiraa jaamacadda CSI-da ama maxadka shaqaalaha dawladda public administration baan ka wadaa noloshu way soconaysaa hamigeyga ugu weynna waxa weeye inaan noqdo qof wanaagsan oo wanaag lagu xasuusto aad baa mahadsan